xalay garaad qasqas ama garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa laga soo baahiyay cod uuna raalli ka ahayn oo waxa ka soo baahiyay nimankii uu la jifada ahaa ama uu garaadka u ahaa jaamac Siyaad hadaladiisii ugu waaweynaa waxa kamid ah soor baa lagu fadhiyaaye sina laguma fadhiyo waa hadaladii taariikhda galay ee xalay garaad qasqas laga soo baahiyay garaad jaamac garaad Ismaaciil Soomaalidu waxay ku maamahdaa soor baa lagu fadhiyaaye sina laguma fadhiyo waxay idin la wadaagi doonaa xalay garaad qasqas cidda ka soo baahisay cidda ka soo baahisay codkii qarsoodiga ahaa iyo calaacalkii iyo cabaadkii xalay ka baxayay ee markaanu sii seexananay xilliyada dambe soo dhacay ee ummadii beer xanuun ku noqday waxa weeye bal ciddii ka soo baahisay iyo sababta looga soo baahiyay ayaan idiin sheegayaa qodobka labaadna waxaynu ka dhiganaa nin lagu magacaabo Baabulaahi oo oran jiray dhalinta garxajis madaxa ama dhafoorka ha u dhigtaan xabadda oo yidhi waxaan joogaa Hargeysa haddaba ma runbaa ninkaa faataa baqlaha weyni inuu maanta Hargeysa ku sugan yahay maxaa ka runa maxaa ka beena muuqaalkeena daqiiqadaha soo socda ayaynu ku lafaguri doonaa haddaad fikri qabtid xag hoose dhig sidoo kale muuqaalkan like saar like ugu dadaan sidoo kalena muuqaalkan sii share garee waxaynu runta ugu sheegi doonaa garaad qasqas oo oohin iyo calaacal coda soo baahiyay waayahay haddaba garaad qasqas xalay cod baa laga soo baahiyay codkaa oo u badnaa calaacal iyo caatow iyo magaranaysaayay in meeshii isi soo xidhaso maqaaxidii laascaanood inay isi soo xidhaso tuuladii yareed inay isi soo xidhaso hadal u badnaa ayaa xalay laga soo baahiyay garaad qasqas wuxuu mooganaa markii uu dagaalka galayay in magaranaysa dagaalku uu ku dambeyn doono jaamac Siyaad sidoo kale dhaqaalihii ay awal haysteen magaranaysa uuna ku filnayn laascaanood cashuurta ka soo baxda cashuur ma aha maarayn karta maamul goboleed waayahay dadka cashuurtooda ku filaan weydii say u noqonayaan haddaba maamul goboleedka ay sheeganayeen siday ku noqonayaan war waxaad ila dhagaysataan in yar oo naqan garaad qasqas oo leh waxa weeye firdhiye waxba gacanta kuma hayo intaa uu girif ku leeyahayna waxa weeye waa intii yareed ee cashuurta laascaanood ka soo baxda bal in yar ilaa intaa yar cashuurta laascaanoodna waa intuu ku girif leeyahay guud ahaanna SSC haddii alla idmo wafti waa loo soo dirayaa dibadda maray doona oo lala hadli doono idinkana laakiin jaamac Siyaado waxaan idinka codsanayaa haddaan garaadkiina ahay raggaa askarta inaad xoolo lacagta soo dirtaan u soo daysaan 4 bilood waa markii koowaad aan sanadka dhowdhow idin la hadlo wali jaamac Siyaado saa loo ma hadlin waa koow saaxiibeel codka haddaba aad ilaarkasiin waa garaad qasqas oo calacalaya oo yidhi firdhiyo waxa la wax gacanta ugu jira haba yaraatee ma jirto sidoo kale waxa uu hadaladiisa waxa uu soo koobaya muuqaalka hadalkiisa waxaan aad ugu qoslay waxa kamid ah duulaano waaweyn baa soo socda haddii ay duulaanadaas dhinaca kale isku rogaan anigu imikaba maadaama uu bixin weydeen dhaqaalihii magaranaysa ciidamadii aan ku bixinayno siinayno mushaarkooda uga dhiganay dhowrtaysigii haddii aad bixin weydeen qarafadii la qarafaysanayay haddii aad bixin weydeen waxa weeye berri ka maalin Somaliland bay noo talin doontaa ka bacdi Somaliland baa soo noqon doonta cidna yaan magaranaysa la eersan cidna yaan la qabsan mar labaad isagoo sidaa leh bal in yar leh eedayn karaa iyo marka wax kharimaan cidda eedda yeelanaysa waxay noqonaysaa guud ahaan dadka oo dhan gaar ahaanna waxay noqonaysaa dadkan amarka siiyey ee inagu aynu koow ka ahayn waaya garaad jaamac garaad Ismaaciil garaad qasqas haddaba xaalkiisu halkaas u maraya xaalkiisu bartaas u maraya hadaladiisii waxa kamid aha waxa uu yiri warbarigii aynu shirka galanay aynu go'aansanay inaynu Somaliland la dagaalamo jaamac Siyaadow waxaad tidhaahdeen wax kastoo inagu qaadanayso dhaqaalaheeda annaga bixinana haddaba ninka garaadka ee la doonayo inuu ummad garaad u noqdo inuu ummad cimaamadeedii noqdo inuu ummad indhaheedii noqdo waxa weeye waa ka maanta leh dad bay hagayo
in garaad jaamac garaad cali ayaa iga maskax bixiyo waxaa lagu yiri dagaalka gal markay sheekadii qadhaadhaatayna lacagtii loogu ballan qaaday inuu dagaalka ku wado oo uu Somaliland kula dagaalamo waa laga goostay qurba joogtii meel alla meelay ka baxeen mooyi garaad jaamac garaad cali ayaa intii yarayda in soo gashana qaatay Nairobi buu baxay waayahay garaad qasqas hadaba xaaladdu waa ku xun tahay codkana waxa weeye haddii aad doonaysid inaad ogaatid garaad jaamac garaad ismaaciil garaad qasqas cidda ka soo baahisay codka waxa weeye waa muhiim inaad ogaatid isagaa iska soo baahiyey waxa uu doonayay si beena ayuu usoo duubay oo waxa uu ku leeyahay de kulli wayna la ogaanayaa birika maalin waynu isku soo noqonanay hala sii ogaado in aniga waxba layga maqli waayey taladaydiina socon weyday wax dhaqaalana aan waayey aan dagaalka ku galo Somaliland ha ogaato isaga codka soo baahiyey qofka ku waraado qofba codka ka soo baahiyey waa been isaga group public soo dhigay group aan looga baahnayn codka ayuu soo dhigay isaga soo baahiyey garaad jaamac garaad ismaaciil garaad qasqas maanta taladiisii xumeyd ayaa garaad jaamac garaad ismaaciil soo rasa garaad qasqasow taladii aad gaadhay 2023 bishii labaad maantay ku urasa maantaad calacalasa maantaad caatoogasa maantaad magaranaysa waxaan lagaaga baahnayn ku hadlasaayo 10,000 maydaan bixin jaamac siyaado maxay ku dhacay wixii la idinku talagalay war waxaa looma baahna sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamadii ururiska harti daaro ay jiidaha baneeyeen garaad jaamac garaad ismaaciil maanta waa butaacay waxaan ku leeyahay ilaahay ha kuu soo celiyo iibaankii Somaliland darnimada oo 100% ah qodobka isaga halka ayaan kaga tagaya waxaan ka hadlayaa nin lagu magacaabo Baabulaahi oo yidhi waxaan joogaa Hargeysa ayaan joogaa haddaba Baabulaahi waynu ogey hooyada ay qarankaba wasburaha siduu ku iman kara Hargeysa yaa u soo deyn kara Hargeysa yaa damaanad qaadi kara inuu yimaado meel calanka Somaliland ka taagan yahay damaanad ayaa bixin kara ma xildhibaan baa bixin kara ma wasiir baa bixin kara ma madaxweyne bixin kara maya haddaba saad moodaysiin arrintu way ka duwan tahay Baabulaahi dib jir waxa weeye horta Hargeysa ma joogo anaana idin cadeynaya balse intaana idin cadeyn ka hor waxaad ila eegtiin muuqaalkan yar ee uu iska soo duubo والله أنا قال لي بتشوفني بعد أغبتي يا صلّيه قبوبة وحوس كدقة يعني المسألة هتشوجه لكن ما تشوجه مر لبعض بالواحد اللي يكتين ويل يرير أو ريال هرجيسة ونحن نقوم قودا قانون أنان ولي ولا فريسنا ما أنان استحقين وبرها برشة استعماله أيوم مقال إسكال صوته ويوسد حوي وحاولنا شيء ما شيء مقال كقدوة يعني إن يتهي maxay dhahdaa masallihi Hargeysa iyarle aad baardi salaamaynaa magaaladii Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland waxa ku sugan oo maanta soo dhaweynay muuqaalka adarkiisina masallaha ayaa ku duubay buu leeyahay haddaba xiniiyihii uu ku iman lahaa iyo raganimadii uu ku iman lahaa iyo ciddii damaanad qaadi lahayd ee maanta Baabulaahi Hargeysa keen lahayd halkay ku dhalatay adduunka miyay joogtaa ma joogto waxaan u sheegayaa xalay waxaan arkay nin la yiraahdo waridaad oo isagu aad qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland u difaaca ayaa lahaa Hargeysa jooga warnaadeerow xog beena lagu siiyay ama adiga si kale u bunbuuninayay wax Hargeysa jooga haba yaraatee ma jirto Baabulaahina Hargeysa ma joogo Baabulaahi Hargeysa ma joogo anaana ku cadeynaya markasa inantan waxa weey waa inaan Nuux Ismaaciil waxay kula kulantay magaalada Jigjiga ayay kula kulantay qoraalkeeda isku shudkaad imika darkiisiin qoraalkeeda waxa ku qoran abtigay oon kula kulmay Jigjiga almacno iyadu waa Nuux Ismaaciil ciida galana way dhaleen maadaama Baabulaahi ee ciida galiye sidaas ay abti ku lahayd waxa weey Jigjig inamada yaray kareen soo tusayna koob baa ka socda Jigjiga koobkaasi waa koobkii loo qabtay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ay wada ciyaarayeen koobkaas oo ka socda Jigjiga ay nimadu tageen halkaas ayay iskala duubeen ay kula kulmeen Baabulaahi ee wax Hargeysa jooga ma jirto cid u damaanad qaadi karto maanta Hargeysa keeni kartaana haba yaraatee ma jirto adi aqligaaga yar ma waxa uu ku siiyay isagoo Hargeysa jooga ayuu ciidamada sirdoonka waxa ka sheegaya maya
xalay isagoo ciidamada sirdoonka caayay ayaa la arkayay qodobkaas waa qodob dee saaxiib baalinteenu muuqaal lamida ku kulmi doono iyo xaqiiqooyinkan idiin soo gudbiya xaqiiqooyin lamida saaxiib waxaad iga tegay asalaamu calaykum